gudoomiye Xuseen ayaa qadka si toos u jira oo ah gudoomiyaha degmada Matabaan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya oo maanta ay shaqaaqa ka dhacday dhacdada halka ka dhacday wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in qofi uu dhintay laba qofood oo kalena ay ku dhaawacmeen markii israasaaseen u dhaxaysa ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dawladda ay ka dhacday maanta degmada Matabaan gudoomiyaha degmada Matabaan Xuseen Moolif ayaa qadka ku jira Xuseen bal waxaad nooga warantaa sidee wax u dhaceen أبو ما سنتهي أنا كوم أدعينا رون أهانتي ما أنتي دقمة متبان وحكذا عي وحنا فلانين وتشنين وحساب تمين فرشا يمسك هذا منا أنه وترين ونقول نقضي وحمكاك رونتي وحن مقلين مع المهان إن جيران دولامو لقولوا ريزا يدينا هذا أمنية كعنته وقهاي معمول كبل مدوك waxaan islaahayn wararkaasi waa wax ku tirkuteen ah oo dadka isku diray ay wadaan laakiin maanta indheyga waxaan ku arkay wafdi ciidan ah qaybihi kala duwan oo ciidanka ah oo wasiirka arrimaha gudaha oo hormarayo oo hor socdo oo duulaan cad ku socdo waan yaabay runtii saldhigga degmada ay nagu soo weerareen iyo xarunta degmada iyo gurigeyga intaba weerar baa lagu soo qaaday saddex jeer bay nagu soo rogaal celiyeen askari baa nooga dhintay dhaawacna wuu jiraa dadka shacabkaana khasaare ayaa soo gaaray barakac badanna wuu jiraa magaalada xaaladeedu aad bay u qasan tahay sidaa og tahay annaga muxuu ahaa dawladda xaggeeda wax dhiba oo aan ka tirsanaynay ama aan ka qabnay ama aan ka filanayna ma uusan jirin hadda wax amarana uma aanan haysanin oo madaxdeena wax amara kama aanan haysanin inaan la dagaalano runtii saddexda jeer oo rogaal celiska oo ay hubka noocyadiisa kala duwan oo adeegsadeen intaba askartii aniga ila joogtay oo istaafkeeda ahayd iyo kuwii saldhigga joogay waxaan kula dhegayay qoryaha maxaa yeelay anagu amar uma aanan qabin inaan la dagaalano dawladda laakiin nasiib darro waxay noqotay in degmadii Matabaan ee nabadda ahayd ee dawladda laga jeclaa ee lagu soo dhaweynayay ee hooskeeda harsanaysay ay 11 sano ka bacdi la yiraahdo dawladda Soomaaliya la wareegtay oo dhiigle inay la wareegtay iyo inay Matabaan la wareegtay ay maanta isugu mid tahay runtii arrin aad iyo aad wadatay gudoomiye Xuseen wararka aanu helin waxay sheegayaan in ciidamada Matabaan tagay ay ahaayeen wafdi galbinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ciidamadiinuna ay qashqashaad ku sameeyeen arrintaas ma jirta miyadlada annaga ilaa hadda ayaana wax qashqashaad iska dhaasana wax dagaal amar u qabin wax dagaal ayaanaan samaynin madaxdeena markaan aragnay duulaankii wixii ku warbixinay geesu baxayna yiraahdeen intaad xabad ka fogaa kartiin ka fogaada ilaa annaga mataqaanana lagu soo daatay guriyeenii iyo muxuu ahaa saldhigii iyo xaruntii degmada intaba duulaankaasna oo ahaa mid ciidamadu ay si saf mareen ay u wadeen wax walba xal iyo nabadaan isku daynay waa soo dhaweynay waxaan maagnay waa walaalihiina la hadla laakiin waxaan aragnay waxa kaliya ay ku raali noqon karaan inay eedinay annagana dilaan inay eedinay annagana qabsadaan hadda yaa ku sugan xaruntii degmada saldhigii booliska iyo controlka magaalada laga soo galay yaa gacanta ku haya annaga magaalada qeyban ka joognaa laakiin sidaan kuu sheegay wax amar ah oo aan u qabnay inaan la dagaalano dawladda ma jiraan waa hubinaynaa waa xaqiijinaynaa ilaa madaxdeena aan amar ka helno muxuu ahaa magaaladana gees baan ka joognaa gees ayaan oga baxnay waxa weeyaan marka haddii madaxdiina idinku amarto inaad dagaalantaan dagaalad galaysaan waxa weeye haddii dawladdii mataqaanaa ee duulaankeedii la xaqiijiyo oo ujeedada rasmiga ah dagaalkan ka dambaysa la xaqiijido loo fiiriyo waxa diinta islaamku ay ka qabto duulaanka noocaana markaas wixii ka dambeeya waa la arkaya laakiin ilaa hadda annagu wax duulaan ah oo aan dawladda Soomaaliyeed u qabno ama muxuu ahaa dagaal hoon u qabnaa ma jiraan haba yaraatee arrintaasna waa arrin u baahan in la taxliiliyo oo la ogaado sababta keentay in qof dhan oo bini aadan la dilo deegaan amni ah oo nabadgelyo iyo xasilooni ka jirto dadka ku sugnaan la barakaciyo amni iyo maamul meel ka jira fadqalala iyo fowdo maalin ah maalin kaligeed ah gudoomiye idinka ishoristaag amaad ku sameyseen wafdigii wasiirka oo u imaanay inuu dadkiisa la kulmo xagee ugu sameynay saldhigu wuxuu ku yaalaa bartamaha magaalada wuxuu ku yaalaa gudaha magaalada waliba laamiga ma ku yaalo xaafadaha dhexdeeda ku yaala booska labaad booska saddexaad ayuu ku yaalaa
markii muxuu ahaa wasiirku oo soo galay saldhigu ma ahayn xarun dadka lagu soo dhaweeyo, ma aha ninka la yiraahdo meel xaflad lagu qabto, xabadna dad laguma soo dhaweeyo. waxa weeyaan wasiirka iyo wafdigiisii way soo galeen magaalada. waxaa anagu muxuu ahaa ciidamada amniga degmada aan anigu faray in aan qofna xabad ku ridin mataqaana madaxda iyo wufuudda noo imaanayso. laakiin taa bedelkeeda waxaa dhacday in wafdigii soo socday ay ciidamadii inta ku leexdeen saldhigii ay xabad ku bilaabeen oo rasaas ay ku bilaabeen. hadda wixii dhici lahay mashaqaa meesha waa ka dhacay, maxaa xala oo isleedahay xalku waa ku jiraa si deegaankii nabadiisa ay usoo laabato? hal waxaan u arkaa walaalow in la xishoodo. Matabaan uma baahna, waa magaalo qadiimi ah, waa magaalo tabaalaysan, waa magaalo samata bixinteeda aan u fakaraynay, waqti badan nooga lumay, qorshe badan nooga lumay, dadaal badan aan ugu jirna sidii horumar iyo kusii gaari lahayd. dhiiggeenana aan ku xoreynay oon al-shabaab uga xoreynay. maantana sugaysay inay harsato hooska dawladda, laakiin in dadkii soo xoreeyey oo joogay ayadoon lasoo wargelin sidii in al-shabaab laga qabsanayo xabad lagu bilaabo. waxay u baahan tahay arrin ummadda Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay maahane in laga garaabo oo la iska warsado oo mas-uuliyaddu maanta la heymaayo. xilka maanta la haayo waa meerto, waa microphone qofba maalin wareejinayo. in maanta lagu samafalo oo wanaag lagu sameeyo. annaga xal baan diyaar u nahay, wanaagaan diyaar u nahay, qofaan diidnaan jirin, qofaan ka hortagnaan jirin. wasiirka soo dhaweymayna iyo muxuu ahaa ninka la yiraahdo muxuu ahaa is-hortaag ciidan kuma aanaan samaynin. qof walba bulshadii magaaladaas joogta markhaati ka aheyd ayadoo xabadii dhacaysa in anigoo guddoomiye magaalada aan qoryaha afkooda ku dhegaayo oo aan diidana oo aan isku dayayo inaan maslaxa sameeyo ilaa ay gaarto in xabad lagu dhufto qayb kamid a askartii aniga garbeyga taagneed. marka arrintaasi waa arrin u baahan ummadda Soomaaliyeed inay ka garsoorto, arrin u baahan dawladda Soomaaliyeed. waxaan mudannahay inay nagula dhaqmaan. ma mudnin xabad, ma mudnin dagaal, ma mudnin in mataqaanaa muxuu ahaa anaga nala hujuumo. hooska dawladda inaan harsanaa u baahana. aada u mahadsan tahay. daawadyaalkaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Matabaan Xuseen Moolif oo qadka taleefanka si toosa igu waramayay. waxaa xusid mudan inaan isku dayno inaan la xiriirno dhinaca kale eeda loo jeediyey oo ah ciidanka dawladda ee tegay maanta degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan, laakiin xiriiro kala duwan oo la sameynay ay noo suuroobi waayeen. wararkii ugu dambeeyay ee aanu helayno waxay sidoo kale sheegayaan in hoggaanka ahlu sunna iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan kulamo ay uga soconayaan haatan magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug iyagoo ka arrinsanaya waxyaabahan ugu dambeeyay ee magaalada ka taagan. sidoo kale waxaa la sheegayaa in ay jiraan dhaqdhaqaaqyo ay wadaan ciidamada qaybta 12aad kuwaas oo qaarkood ay doonayaan inay tagaan magaalada Guraceel, halkaas oo la filayo in wasiirka arrimaha gudaha uu caawa ku hido.